waddan dhan oo Sacuudi waa 40 milyan ku dhawaad oo maanta maalin isdifaaci waayo macaybka weyn baa jirta waxaad arkaysaa iyagoo qamiisyo dhowr xabba inta iska kor gashaday cigaal korka ka saaray oo markay soconayaan saa hadba leh oo gacanta maaragtay hadba saa ugu ururinaya yaad arkaysaa ragga fucoodana gantaal iyo nuclear iyo sawaariikh qaarad gooya ayay intaa samaysanayeen baa shalay markii dagaalku dhacay gantaaladii ugu horreeyay xataa way iska celi waayeen waxaa maraykanku kaga qaatay wadamada khaliijka billion ama trillion way indifaacina iron dome iyo waxaan idin samaynayna beenbeenta ahaa Iiraan dagaalkan lagu qaaday ilaahay ma qadaro haddii laga adkaado nin kastoo muslima wuxuu gaarayaa marxaladii tatarka Netanyahuna khariiradii iyo maab weyn buu wataa oo wax la Israa'iil kubra ayuu rabaa inuu xaqiijiyo marka haddii ay taas u xaqiiqowdana hadda runtii waxaan u malaynayaa in nin ay noqonayso qof walba madaxaada mayrax ku xiro waana la iska garanayaa wadamada ku xiga waa Turki iyo Pakistan bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin thumma salatu wa salamun ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam shalay adduunyada waxaa ka dhacay dagaal la wada sugayay oo dhex maray Maraykan iyo Israa'iil oo dhinaca iyo reer galbeed iyo wadanka Iiraan waa dagaal la filayay dagaalkaas isagoo shala kale oo sabtiga markuu dhacay adduunka dhan isbedel baa ku dhacay ama saameyn xoog leh ay adduunyada uu ku keenay hadday ahayd xag dhaqaale oo maanta shidaalka adduunka waxa la aad buu u kacay walwalka wadamada adduunka soo food saaray taagdarada iyo dacfiga wadamada carbeed oo banaanka yimid waxaasoo idil markii dagaalku dhacay hal maalin ayay banaanka u soo baxeen ciwaanka aan maanta rabaa waxay tahay oon dagaalka aan waxyar uga sheegayaa maxay Soomaalidu ka baran karaan oo duruus ah dagaalkan hadda Iiraan iyo Maraykan iyo Israa'iil dhex maraya iyo dagaal hore u dhacay oo noocaan oo kale ay kuwa dhici doona waxay Soomaalidu duruus ah oo ay ka baran karaan midda Soomaalida intaanan gaarin dagaalkan Iiraan iyo u dhaxeeya qolyahan kale markuu shalay ka qarxay Iiraan markiiba waxay beegsatay saldhigyada wadamada Carabta Maraykanku saldhigyada uu ku leeyahay wadamada Carabta hore ayaynu u sheegtay maba aysan qarin waxa wax la yaaba ah runtii 80 sano in ku dhow baashidaalka Carabtu Sacuudiga waxa ugu horeeyay ayaa muxuu ahaa ay Carabi shidaal haysatay Sacuudiga ugu facweyn Qatar Imaaraat Bahrain iyagoo markaa 80 sano ama in ku dhow dawlado ahaa oo dhaqaalaha adduunka waxa loogu jecel yahay waa shidaal markii dahab laga reebo Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ku manaystay oo dhaqaalahoodii trillion halkii trillion waa 1 bilyan ay Maraykan ku maalgeliyeen wadamadooda ay siiyeen bunuugtooda ay dhigteen maanta marka noloshii khiyaaliga ah oo ay ku noolaayeen waysan u diyaar garoobin ceebtooda ayaa banaanka timid runtii marka walaalayaal ku tiirsanaanta shisheeyaha waliba cadawada ah waxa laga dhaxlo waa mid maanta Carab haysto kale tafsiir kale uma baahno shalay waxay garaacday wadanka la Bahrain Imaaraadka oo ilaa hadda maanta la leeyahay Jabal Ali dekadi iyo dhismayaal waaweyn hoteelaha ayay dhulka la sintay ilaa hadda saacadan aan idin la hadlayo maanta axad ah garaacay wali ku socdaa Bahrain Imaaraat Qatar wadanka la yiraahdo maanta Sacuudi Jordan intaas wadan bay garaacday marka waxa wax la yaaba ah marka dhaqaalaha faraha badan Carabi xagee siday u manage gareeyeen siday u maamuleen inta badan waxa ku dhacday xilligii jaahiliga
وواحد جرى قبيل غير بني تيم عرفته حلي قبل الإسلام ضد بدوة وقبيل سعة أي أهايين كود دقالة قبيل كاس وحل يدو كوكلا أي عايان يقضى الأمر حين تغيب تيم ولا يستأذنون وهم شهود reer taym markay joogaan talada waa la gooyaa waxba lama weydiin leeyahay iyagu soo taagan baa talada la gooyaa wuu ku caayaya markay maqan yihiin markay yuqdal amru xiina taqiiba taymun reer taym markay maqan yihiin talada lama sugo waa la gooyaa oo waxba dhigba jalaq ilba la iskama saaraa la yiri waxba lagama soo qaado maqnaashadooda marka ay joogaanna waxba lama weydiin iyagoo jooga ayaa talada la gooyaa carab intaanu dagaalka bilaaban waxay marna u cararayeen Mareykan marna Dahraan mar Turkiya aadayeen waxay lahaayeen Iiraan yaan la weerarin Iiraan marka weeraritaankeeda waxaa ka dambeeya nimankan koofiya gaabta ah xaqiiqatanna hadday Israa'iil ay dad bini aadan yihiin nimankan koofiyadaha gaaban nabiyullah Muuse kuma yiraahdeen قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هنا قاعدون قوم جبارين مركي اللي رجال بيت المقدس قوم كجوغ لا دغالما oo hanta oo dawladnimada la wareega waxay yiraahdeen lana gelimayna ay yiraahdeen inta qoladaas ay ka baxaan markaas waxay yiraahdeen cinaadkoodii madaxadeygooda fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna huna qa'idun adiga iyo rabbiga taga rabbigeen ma dhihin halkaan ayaan fadhinaynaa markaas mudayir waqti aan saa u dheerayn baa fircoon hortooda lagu halaagay qoomka marka waxay ahaayeen dulinimada iyo hasiimada ku barbaaray marka waa dadka ambiyada ilaahay dilayay ballan ma laha diin ma laha nimankaas xataa wax bixin ma laha wax quur ma laha xataa mar kasta oo ay shar maleegaan ilaahay wuxuu yiri subxaanahu wa ta'aala ayad kale wuxuu ku yiri kullama awqadu naara lil harbi أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا مر الله مركي اسكو ديان إني فتنة بلايين مليغان والدقال مليغان إليها أيام مركا دبكش بيكشبه قدامية دقال الذي كوباد يأدونك إي رهدان دقال هذا صورا إيجا إيا كدن بيه ميتك هدا يوكرين كالصعداء نين اللي يراد هنري كسنشر والله تلياشي مدعوانياشي كارتر إيو ريغان أها ayaa isagoo ka hadlaya YouTube-yada ku jirta oo leeyahay Yurub dagaaladii way iloobeen buu leeyahay ana Yurub waxay bilowday inay ka xorowdo oo Mareykanka ku madax adeegto adika arki doona ayuu yiri istaraatiiji mar hore ayuu ka hadlay baa leeyahay nin la yiraahdo Friedman asna nimankan koofi gaabtaan isaguna aad buu uga hadlay oo maleynay hadda inuu nool yahay waa niman mar walba sharta iyo dagaalada adduunka wax ka oloshan inta badan ayaga ayaa muxuu ka dambeeyay Trump marka doorashadiisii 480 milyan bay siiyeen baa la yiri remote control way meesha doonaan ay u wadaan waxaan marka warka wadan leeyahay nin noocaas oo ma'muura oo amran oo ayaga abiidba u ah Iiraan haweereerin ma ka yeelayaan ka noocaas ay trillion siiyeen marka isagoo marka horeba islaamka iyo dadka muslimiinta nacab oo aad u liita oo waxa Soomaaliya Minnesota ku sameeynayo oo bini aadan buu uusan ahaynba ayuu haddana ku shaqaynayaa ajadayaal khaarijiya oo loo qorayo oo nimanka EPAC leeyahay ayaa gacanta ku haya iyo Mareykan iyo Western siyaasadooda hadda shalay markiiba Ingiriiska ay yiri masaalixda gobolka aan ku leenahay iyo saaxiibadeena waa ilaalinaynaa waxaan marka Arab dhibaatada maanta haysata qof kasta oo Soomaaliya ama Muslim duruus ayuu ka baran karaa maxay tahay duruustaas inaad adigu isku tiirsanaato oo nin asaaga ah aadan wilaayadaada iyo dadnimadaada iyo sharafkaada u dhiiban
weliba gaar ahaan weliba cadowga kasii daran. dhaqaalaha intaa leeg ay hayeen waxay ku isticmaaleen inay shucuubtooda ku qamciyaan. inta badan waa boqoro, baxrayn waa boqor, imaaraadku sidoo kale waa boqor, wadanka la yidhaahdo jordan waad aragtaan waaba meel 100% yuhuudda nimankan jooga ay ka taageeraan. wadanka la yidhaahdo mataqaanaa muxuu ahaa qatar sidoo kale, wadamo boqoraa wey oo shucuubtooda runtii ku salidan. nidaamka dictatorka ah ama nidaamka boqorka ah iyo caalamkan maanta sidaa u kala furfurmay wax ismudaabaqaynaya ma ah. runtii waxa ugu weyn oo masaa'ibtu ka haystaa waxay tahay diinta ilaahay subxaana wa tacaala uu siiyey oo sharafta ku lahaayeen ayay ka tageen. xoolihii ummadda ayay marka maraykan iyo nimankan israa'iil leeyahay ayay farta ka saareen. wadama adduunkay ku maalgeliyeen, qaar shucuubtoodii xabsiyo ay sacuudiga oo kale boqolaal xabsi baa ka furan oo culamo muslimiino oo sacuudiyaana oo masaakiina lagu guray. ninkan weliba hadda yimid iyo waxaad arkaysaa iyagoo qamiisyo dhowr xaba inta iska kor gashaday, cigaal korka ka saaray oo markay soconayaan saa hadba leh oo gacanta maaragtay hadba saa ugu ururinaya yaad arkaysaa. ragga fucoodana gantaal iyo nuclear iyo sawaariikh qaaradka qaarad gooya ayay intaa samaysanayeen. wax lala yaabaa marka maanta baa shalay markii dagaalku dhacay gantaaladii ugu horreeyey xataa way iska celi waayeen. waxaa maraykanku kaga qaatay wadamada khaliijka bilyan ama trilyan way idin difaacaynaa, iron dom iyo waxbaa idin samaynaynaa, beenbeenta ahaa. waxa uu sheegay o dhan baaba beenaba. israa'iil ayaa iron domkooda shaqay lahaa. iran waaba dowlad weyn oo 4 wiil oo falastiinka oo reer Gaza ah ayaa iron domka mid dhowr boqol oo dollar ay ka gantaale ay ku soo Al-Abbas iyo Al-Yaasiin iyo ayaa inta dhex maray buu garaacay meelaha ciidankoodu joogo. teknolojiyadu marka ninna lama laha. meesha Xamaas 2 sano iyo bar ay hadda dagaal ku jirto, wadan dhan oo Sacuudiga waa 40 milyan ku dhawaad oo maanta maalin isdifaaci waayo macaybka weyn baa jirta. hadi mushkila wallahi. anagu xarameynkaas waan jecelnahay, mana jecel wadamada muslimiintu inay burburaan oo ilaahay dhibka ka helo, laakiin kaalintii la rabay inay ka qaataan islaamka difaaciisa iyo muqaddasaadka waxaad moodaa inay lumiyeen. xagga xuuti baa u fadhiya oo dagaalka Yaman waad ogeedeen wixii maaliyad ku baxay. dhaqaalaha marka faraha badan hadda wadanka la yiraahdo Qatar, Ingiriis qofkii tagaa arkay meesha la yiraahdo Liverpool dhismayaasha ku yaal oo dhan inta badan wadanka Qatar ayaa gatay, waa ku maalgeliyeen. shirkadu waa weyn ay ku leeyihiin. adduunku dhaqaalaha waa la isdhaafsadaa, laakiin waa inaad noqoto nin muxuu ahaa hub meel u yaala. waxaa shaacir jaahiliya uu yiri geela marka uu cabayo darka ninkaan haysan wiilal dagaalyahana oo geel xoog u difaaca darka ceelka waa laga duminaya, geeloodana waa la qaadanaya. shaacirka jaahiliga ayaa sidaa yiri. adduunka maanta waxaa ka socda isbedelkaas ninkii xoog leh ayaa reerka u haraya. ayatullaahi hadda la yiri waa la deli shalay wuxuu yiri adduunka ninkaan haysan buu yiri hub uu isku difaaco oo sharafkiisa iyo cirdigiisa iyo dadnimadiisa ku difaaco. ninka aanan haysan buu yiri ama dowladdan haysan cadowgeeda lugaha cadowgeeda hoostooda cadowgooda macnaha lugihiisa hoostiisa ayay ku noolaanayaan buu yiri. anaa cadowgaada cagta ku saaray, cagta cadowgaada hoostiisa ayaad ku noolaanaysaa. waa run hadalkaas ayuu yiri. walaalayaal, Iiraan dagaalkan lagu qaaday ilaahay ma qadaro haddii laga adkaado nin kastoo muslima wuxuu gaarayaa marxaladii tataarka. oo tataarka reer muslimiintu waxay gaareen inuu inta fariisto yiraahdo waa ku dilayaa meesha si joog ninka muslimka Ciraaq markuu cagta mariyay hasiimadii muslimiinta ku dhacday ee uu inta aado magaalada meesha ugu fog 4 saacadood 5 saac 6 saac uu taagan yahay inta loo yimaado xataa dhagax la qaato madaxa
madaxa dhagax lagu baraajiyo xataa lagu kala jabiyo markii la waayo mid taara waxa la inta 40 muslimiin isku soo xiray yusuf laarde hubna ma jirin yu dhanbacaad buu wada siixay markaas dhagaxta soo qaato midba madaxa bash uga siiya umada seerkan ay sooga markii dambana ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu qadaray aynu jaaluut oo Falastiin in lagu jabiyo dawladda mamalik waa ka sagala taas waxaan markay ula jeedaa labada wadan oo Iran iyo Mareykan iyo Israa'iil waa wadan iska daaca saniicul isticmaar ah laakiin Mareykan iyo reer galbeed waa nimankii Roomaanka ay ka soo jeedaan Iran dawlad Farisiya qabla al-Islam Arab labada maamul ayay ku hoos jireen islaamku markuu yimidna labadii maamul oo xilliga Umar ibn Khattab Khalid ibn al-Walid iyo Sa'd bin Abi Waqqas iyo Abu Ubaydah ibn al-Jarrah baa soo afjaray labadii maamul oo Shaamna ka saaray Iraaqna ka saaray dhulka la yiraahdo mataqaana dhulka Iran oo dhanna qabsaday dagaalkii Qaadisiye kadib oo boqorkii Iran markaa isagoo cararaya ayuu China galay maanta wixii ay Carab Nasri ku lahaayeen waa diintana way ka tageen anu shucuubta ma sheegaye waxaan sheegay dadka madaxda ah shucuubtu quraanku sidiisaba iyo islaamkuba shucuubta lama hadleen madaxda ayuu la hadlaa laana ummadi waa madaxa waxa loo yiri waa meesha umada laga hago hadii ninka xaakimka ah oo faasid noqdo ama siyaasadiisu ay noqoto mid aanan cilmi ku dhisnayn umadaas waa ku daysi waxaan ku soo koobayaa marka warkayga intaanan aad u ballaarin nimankan la yiraahdo dagaalka hadda socda waxa ku yaala madiiq la yiraahdo Hormuz boqolkiiba shidaalka adduunka 20 ilaa 30 boqolkiiba ayaa mara hadii la xiro annaga Soomaaliya marka dhaqaal ahaan uu saameynaya oo wada aragteen beerihiina waan ka tagnay xoolihi waan ka tagnay barbeelad ma aysan bar xoolad ma aysan waxa la waxaan cunno heer waxa la maraya kalluunka xataa dibadda laga keeno ayaan dhaweyd camba laga keenaa dibadda moos baa laga keenaa qofka Soomaaliga inta badan ganacsadaha ah waxa dibadda laga keenay ayuu ka jecel yahay waxa dalka inuu xoog galiyo iyo hadii dawladda maaragtay ku dhiiri galinaysa dadka beeraleyda oo canshuurta ka khafiifinaysa caqabad badan baa jira marka waxa soo khatar ah meelaha sixirmaan iyo baabul mandab iyo dagaalku sii dheeraado Soomaalida Ilaahay baa u maqan waxa aan ka barakarnaana duruusa waxay tahay xilligan anagoo dad yar inaan midowno inaan isku tashanno wadamada aan leenahay waana difaacayaan waa saaxiibadeen waxba noo qaban maayaan hadii saaxiibtino wax la isku siinayo Carab oo adduunka waxa ugu fiican laga qaatay oo dahab iyo dollar dahab iyo waxaan dhigaa dollar ayaga leh dahab iyo shidaal iyo meelaha ay ku yaalaan oo istiraatiijiya inta 67 saldhigyo Mareykanka ay ku lahaayeen oo ay difaaci waayeen annagoo wax nagu xilanaya jirin oo bal asagu wax nasiiyo waxba aanu ka faa'iidin waxa aqliga ninka siyaasiga Soomaaliga inuu ninka kale walaalkiisa dalkan loo naxo abaaraha iyo colaaduhu halakeeyeen marka runtii dagaalka khaliijku awradii Carabta ayuu banaanka keenay nin kasta waxa wax la yaaba ah wadamada la yiraahdo Mareykan iyo Ingiriis iyo Mareykan iyo Ingiriis iyo New Zealand iyo Canada iyo Australia shanta wadan oo luqadda Ingiriiska ku hadla shantuba Ciraaq markay burburinayeen waxay saldhigyada ka duulayeen Sacuudi oo magaalada Carcar la yiraahdo Qatar iyo Bahrain iyo Imaaraadka iyo Jordan shan wadan oo nin isku hal wadan waay la luqadaha Ingiriiska wada asalkiiba Ingiriiska Britain ka tageen markaas ay walaalahood wadanka Ciraaq oo 5,000 sano dawlad ah ayaa hortooda lagu baabi'inayay waa cuqubadii wadanka Ciraaq ka dhalatay nimankan xataa Iraniyiinta ah Ciraaq waxay ka baabi'iyeen kulli iyadana waa helayaan macaankeeda marka Carab waa mar lacagtooda la boobayo iyo mar ay wadanka kale ku duulayaan waxaad moodaa annagu boqolkiiba boqol aqliyada sidii u fakarayaan annaguna u fakaraynaa taana waxa ugu wacan mujtamacaadka sidiisaba haduusan istiraatiijiyan duwalku haddaysan u fakerin oo industriyo waaweyn iyo macaadiye ka fakara ummadda mustaqbalkeeda haddaysan lahayn ummaddu mar kastaba khalad istiraatiiji ayay ku dhacaysaa Mareykanka adduunka bilaash buu isaydiray walaalayaal waa taariikh xumaatadiisa walaalkiisa iska dhaaf xumaatadiisa iyo kibirkiisa muxuu ahaa waa bani aadan oo bani aadanku tanki bani aadanka ayuu dhaafi rabaa
israa'iilna xilligii waxay maraysaa axmed yaasiin hogaamiye xamaas uu yiri 2027 haddii dagaalkan sii socdo maanta kaliya shalay ayaa israa'iil cabaadkoodii netanyahu waa lala cararay khubrisa la geeyey carabta waxay ku mahmaahdaa oo madaarista ibtidaa'iga lagu dhigtaa ukilta yawma ukila athawr al-abyad maalinta dibiga cad la cunaa ana la cunay farriq tasud walaalayaal maraykanku adduunkan haymanadan uu la yimid baada xarba alcaalamiya الثانية dagaalka labaad adduunka kaliya ayuu quwadan la soo baxay waxaa la sheekay 1963 maraykanku 500 oo institute oo waaweyn oo istaraatiijiyadda wadamada adduunka iyo sidii loo maamulayo iyo sidii wadanka cadawga ku noqon kara si loo target gareeyaa ayay lahaayeen baa la yiri ninkii raba inuu meel gaaro dadaal buu ku gaaraa Yurub markii la weydiiyey waliba wadanka Germany markii la isugu tagay oo la baabi'ay 5 sano kadib Germany iyo Japan siday ahaayeen bay noqdeen waa maxaad ku gaarteen baa la yiri anagu dad baan dhisnay ma aanan isin bay yiraahdeen guriyo iyo dadka noo dhisnaa dadka wixii ka haray baan marka anaguna dhisnay dadkii baa dib xadaaradda iyo ilbaxnimada u soo celiyay daba marka waxaan leeyahay carab hadday shucuubtooda dhisan lahaayeen oo maal gashan lahaayeen oo aqoon-yahankooda iyo dadka kale oo muslimiinta Sacuudigu meel Ilaahay barakeeyo dajiyay maanta kama aysan walwaleen yaa idin difaacaya malaayiin dollar trillion baa looga qaatay malaha wax laga gaday rash bay ahaayeen wax ilmo ku cayaaraanba marka Soomaalidu annaguna hadda waxaan rabnaa annagoo dad yar ah iska masaakiina dagaalana baabi'iyeen colaado inaan ilaahno yuhuuddu Israa'iil baa waxna siinaysa xiriir baan la yeelanay halkaan ay joogi jirtay waxa idaacadaha qaar ka dhacaya wadiyaabaysa marka oo meelaha la taagan yahay umada haday burburto aqliyana waa u burburaan marka duruusta aan ka baranayna waxay tahay inaan anagu isku tashano intii gooni goor tahayna aan naftayda badbaadino haday dhici weysana waxaan ugu dhacaya sida wadamada carabta ku dhacay oo walaalka oo hiil kuuban hadaad khadijo ila shalay Ciraaq baabiyeen adigana Ilaahi baa ku khadilay oo garabkaada ka baxaya ninka la yiraahdo Netanyahuna khariirada iyo maab weyn buu wataa oo wax la Israa'iil kubra ayuu rabaa inuu xaqiijiyo marka hadii ay taas u xaqiiqowdana hada runtii waxaan u malaynayaa in nin ay noqonayso qof walba madaxaada meeyrax ku xiro waana la iska garanayaa wadamada ku xiga waa Turki iyo Pakistan ama cagta hoosteeda ayaa la gali doonaa marka Ilaahay shartooda Allah na mootiyo wixii shar muslimiin la doonay Allah ku celiyo hadalkayga intaas ayaan ku soo badbaadinay ayaan ku soo koobay billahi tawfiiq salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh adeega maamuus ee shirkadda Hormuud waa xirmooyin adiga ku gaar ah oo ka kooban internet kaliya ku hadal kaliya ama internet iyo ku hadal wada jira naftaada ku maamuus xirmooyinka adeega maamuus oo kaga shubo hadda xidig 212 4 gees